Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa idin salaam walaalaha igu qaaliga ah meel walba oo dunida ka joogtaan. Kusoo dhawaada janalkayga halkaad igala socotaan waa Fahima Janal. Haddii ay tahay markii kuugu horeyso waa janalkayga soo booqato fadlan subscribe noo taabo sidoo kale gambaleelka furo si aad u heshid muuqaalada dambe aan soo wado. Qisadan gabar ayaa ila soo wadaagtay waxa ayna ku bilaabanaysaa sida tan gabar iyo ninkeeda ayaa meel wada deganaa oo America ayay ku noolaayeen waxaana u joogtay 4 gabdhood gabdho aad u rooroon oo xogaa yara waaweyn ayayna haysteen. Hooyada oo qisadan ka sheekaysa waxay tiri waxaan aad u jeclaa inaan asxaabteeda waqti la soo qaato habeenada qaarna aan aroosyada iyo meelaha xalfadaha aan ku soo daaho gabdhaheygana sidaas oo kale ayaan jeclaa ayay tiri inay asxaabtooda waqti la soo qaataan. Waxay tiri ninkeyga aad ayuu u maseer badnaa wax yar markii aan banaanka ku soo daahana aad ayuu iigu qeylin jiray. Runtii waan dhibsaday ayay tiri waxaa jirta gabar aan saaxiibanaha oo degan wadanka Kenya oo markasta aan u sheegin jiray sirteeda iyo wixii igu soo siyaado. Maalin maalmaha ka mid ayaan soo wacay ayay tiri saaxiibteeda waxaan u sheegay in ninkeygii markasta uu aad u qeylinayo haddii aan soo daaho iyo haddii aan guriga joogo iyo sidoo kale caruurta haddii ay banaanka ay ku maqan yihiin. Gabadhii ayaa waxa ay saaxiibteeda kula talisay in ninkeeda ay u sameyso waxyaabaha lagu tilmaamo ama lagu sheego sixirka. Waxa ayna ku tiri saaxiib waxa aan kugula talin lahay nin aad u wanaagsan oo jooga halkaan inaad u timaadid si uu waxyaabo kuugu sameeyo. Xaaskii la qabay 4 gabdhood haysata ayaa arrintaas u riyaaqday waana ka helay ayay tiri waxaana imaada Afrika si ninkii ay iigu geysay gabadha aan saaxiibada nahay. Gabadhii ayaan u imaaday ninkii ayayna ii geysay. Ninkii waxa uu dhahay wax baan kuu sameynayaa waxaad nageynaysaa gurigaaga ninkaagana dib dambe inuusan kugu qeylin ayaan kaa ballan qaaday alaabtan qaad oo gurigaaga geey. Ninkii sixiroolaha ahaa ayaa gabadhii waxa uu sameeyay ayay soo qaadatay gurigeedii ayay ku soo noqotay halkaas ayay meeshii dhig la yiri ama wixii sameey la yiri ayay sameysay kadibna ninkeedii maalmo kadib isbedel aad u weyn ayaa ku dhacay. Ninkii in uu hadliin oo hadalkii uu yareeyo sidoo kale inuu qeyladiyo dhan gabi ahaanba uu joojiyo sidoo kale banaanka in uusan u bixin oo awal ninkii shaqeysan jiray ee xayiga ahaa ee banaanka aadi jiray ayuu ahaa laakiin wuu joojiyay ayay tiri markii aan gurigii keenay waxyaabihii ninkii sixiroolaha uu ii soo dhiibay ninkeyga waa uu diiday ayay tiri inuu shaqeeyo 24 saac guriga ayuu iigu jiri jiray ayay tiri ama uu fadhin jiray. Sidoo kale annaga haddii aan baxno iyo haddii aan joogno wax hadal kama dhihi jirin nagumana qeyli jirin ayay tiri waa uu joojiyay qeyladii badneed. Muddo ayaan sidaas ku jirnay ayay tiri muddo ku dhawaad 5 sano ayuu odageygii guriga joogay wax shaqadii dhan iyo howlihii banaanka uu ka qaban jirina uu joojiyay. Kadib waxay dhahday gabdhahayga ayaa ii waaweynaaday 3 gabar ayaa la iga guursaday ayay tiri waxaa isku soo harnay gabadhii yareed aniga iyo aabihii waxaan ku daalay tiri shaqadii maadaama banaankan aan ka soo shaqeyn jiray gurigana howlihii gurigana ay sugayaan aad baan shaqadii ugu daalay waxay tiri gabadhii saaxiibtay ahayd oo aan talada u doonan jiray ayaan waxay tiri wacay 5 sano oo odagayga guriga joogana hal maalin uma sheegin bay tiri inaan maxay ahayd sixir iyo wax noocaas camal aan u sameeyay. Maalintii dambe saaxiibtay waxaan ku dhahay saaxiibay Afrika u soo socdaa ninkii maalintii waa inaa ii geysaa oo odageygii hadda waa iska taqaanaa ilaa maalintii halkii la fariisii buu fadhiyay waxaan rabaa inuu dhaqdhaqaaq sameeyo. Waxay tiri haye gabadhii saaxiibtay baa ballanay muddo kadib Afrika imaaday tiri saaxiibtay ay kaxaysan ninkii oo halkiisii joogay bay ii geysay. Ninkii aan wada hadalnay walaalow ma garanay maya ani kuma xasuusto okay waxaan gabar noocaas camal ah oo maalin dhexdaas muddo 5 sano ka hor wax u sameysay. Ninkii wuxuu yiri haye waa ku garta hadda maxaa rabtaa. Hadda waxay tiri odageygii wuu fadhiistay banaankii waxba kama qabanayo hadal male farxad male sheeko male waxaan rabaa wixii aan u sameysay haddii inaad ka bixiso oo ka qaado oo sidiisii hore uu markiisa hore ahaa uu ku soo noqdo. Ninkii waxay tiri waa uu qoslay dhinacyaduu fiir wuxuu ku yiri walaalay aniga sida dadka loo fariisiyo ayaan aqaana ee sida loo kiciyo ma aqaano. Waa yaabay tiri oo maxaa ka wadaa Soomaalida idhin maalintii aan ku imaanay ninkaaga maalintii uu rabo waxaan waa laga furfuri karaa Soomaalida idhin haa waan ku dhahay laakiin hadda waxaan kuu sheegayaa aniga arrinkaas aan waxba ka qaban karnin oo kaliya dadka sida loo fariisiyo ayaan aqaanaa oo sida loo bedelo ma garanayo. Waxay tiri waan rumaysan waaye waan naxay warsee wax u jiraan may waa sidaas
waxay tiri maalintii kadib waxay tiri waxaa ogaaday tiri ninkii sixiroolaha ah iyo saaxiibteeda inay istireen oo iga aqli badiyeen oo ninkaygii maxay ahayd talada wanaagsan siin jiray nagala fadhiisiyay ayay tiri maalintii kadib waxay tiri waan soo cararay Afrikaan kasoo tagay waxay tiri waxaan u imaaday bay tiri wadaad oo quraan ee dadka saarsaaro quraankiya odagayga la saarsaari jiray tiri quraan saaraa lagu bilaabay wax uu isbedela ma lahan tiri sidiisii buu iskaga ahaa shib banaankana uma soo bixi jirin waxay tiri arrinteeda sidaas ayay aheeday tiri wax oo maxay ahayd aan tala ka helay iyo qof dambe oo aan la wareysto ama qof dambe oo aan la sheekaystana ma jirin ninkaygiina uma sheegin ayay tiri oo waan ka cabsanayaa xitaa haddii aan u sheega arrinkaasi waxay tiri qof wax ka dhihi kara ma ahan oo wuu isbedelay shib ama aamusnaan fara badan ayaa ku dhacday ayay tiri oo dadka lama hadlo banaanka uma soo baxo adigu waa iska dareemto qof isbedel weyn ku dhacay ayuu noqday ayay tiri oo xitaa haddii aan u sheego arrinkaasi waxba kama dhihi karo qof oo maxay ahayd meerkiisa joogo ama qalbigiisa joogo ayaa arrintaas wax ka dhihi karo oo wuxuu noqday tiri qof iska maqan oo markasto maqana jooga waxay tiri waan yaab waxaan sameeyeen waan garawaayay tiri markii dambe waxaan u imaaday bay tiri wadaad markaas waxaan dhihi tiri wadaad oo dhibkan ayaa jiro maxay ahayd odagayga ayaan sidaan ku sameeyay maxaan sameeyaa maxaasi ugula tali lahayd wuxuu igu dhahay tiri odagaaga u sheeg cafisna weydiiso ilaahay subxaana wa tacaala bari wax kale oo arrinkan laga qaban karo ama wax laga ma arkin oo aan ka qaban karno ma jirto ninkaagana markasta ilaahay u baro quraanna saar markastana waxaad weydiisataa inuu ku cafiyo maadaama qalad aad u weyn aad ka gashay waxay tiri waa naxsanaa waxaan sameey ma aqaano markasta waxaan soo xasuustaa hadalkii uu dhahay ninkii oo ahaa aniga sidii wax loo fariisiyo ayaa dhaqaana ee sidii qofka loo bedelo ama qofka uu dhaqdhaqaaq u sameeyo ma aqaani markasta waxay tiri waa qoomameeya gabadhii saaxiibtay ahayd waxay tiri waan gooyay waxaan ogaaday inay qof xun tahay waayo maalintii aan taladan usoo bandhigayay maysan dhihin ayay tiri ninkaagu u sabarnaa gabar fiican noqonaa gabar sidaana noqo waxay ugu bilowday bay tiri nin sixiroole ah ayaan ku geynaya dhibka ugu weyn waxay tiri saaxiibtii ayuu iga soo gaaray iyo ninkii sixiroolaha oo markii aan u tagay oo arrinkan aan ula tagay isla markii iga ogolaado oo ninkayga waxyaabo intuu igu soo dhiibay igu yiri guriga geey marka waxay tiri dhibaatadaas ayaa igu dhacday laga yaabay inay gabdho badan ku dhacaan gabdhaha Soomaaliyeed waxay tiri ha ka digtoonaadaan hana iska ilaaliyaano dadka sixiroolayaasha dadka quraafaadkii waxaas aaminsan iyo gabdhaha markasta raggooda marka ay ku qeeliyaan dhibsadaan ay tiri inuu dhibaato ugu imaan kartana ha ogaadaano abaayadaani eti ma soo dalbanin ama ma rabta inaa la soo talisaan laakiin sheekadan waxay usoo gudbisay inaa adinkana ka digtoonaataan haddii ninka iyo naagta ay khilaaf soo kala dhexgalo ama ay is anfici waayaan ilaahay adduunyada wuxuu u balaariyey inay ku kala daneystaan ma ahan qofka in waxyaabaha sixirka iyo waxyaabaha noocaas camal qofka kaleeto u raadiyo waayo dhibaatada hadda ninkan ku dhacday bal arag qof waalan oo fayoobeen oo caafimaad qaban oo miir qaban camal ayuu iska noqdo oo maqana jooga intaas oo dhan oo dhibaateen waxaa ka dambeysay gabadhan xaaska la qaba ah sidoo kale gabadhii ay u tagto oo taladaas ay u soo jeedisana ayadana way ku qaldaneed marka arrintan waa arrin la yaab leh oo runtii qof kasta markuu maqlo uu aad ula yaabayo ha ka digtoonaadaana gabdhaheena Soomaaliyeed waxyaabaha noocan camal inay ku dhaqmaan waayo qofka bini'aadinka naftaa leedahay oo kale ayuu leeyahay hadda ninkan way fadhiisisay nin wax qabsan kara maaha nin shaqaysan kara maaha dhibaato aad u weyn ayay usoo jiida ayada oo u muuqato inay asxaabteeda iyo inay banaanka saqdhexe kusoo daahda ay u muuqato ayay intaan oo dhan oo dhibaato ninkeeda u gaarsiisay marka reeraha isqabo markasta wixii qofka kale uu dhibsanayo inay iska waaniyaan way fiicanta laakiin in leys dhibaateeyo ma fiicno waad mahadsantihiin qisadan xanuunka badan oo murugada badan oo ku dhacday gabadha Soomaaliyeed waxay usoo gudbisay in ay adinkana iska digtoonaataan oo aad tan ayada ku dhacdo kale aysan idinku dhicinin waad mahadsantihiin sidaas iyo nabadgelyo